waxay ahayd habeen ka duwan habeenada kale ee ay dhalintu ku kulmaan fagaaro noocan oo kale ah waxay cid kasta oo ka mid ah dhalinyaradani tiigsanaysay daahfurka iyo iibsiga heesta lixaad oo in muddaaba laga hadalhayay baraha bulshada ayaa waxaa xafladda kale iibsiga iyo daahfurka heesta lixaad lagu qabtay Havana Cafeteria iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee wakiilada shirkadaha ganacsatada kala duwan ee iyagu heestan markii ugu horeysay abid deegaanka Soomaalida iyo geyiga Soomaalidu degtaba ku dhiiraday iibsashada heesta lixaad ee uu qaado fanaanka daada yar ee Caydiruus Axmed Jeex ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay fagaaraha masraxa daahfurka heestani hadda masraxa ku soo dhaweynaynaa waa fanaanka daada yar ee heestan ku luuqeynaya muuqaalka cajiibka ah ee loo sameeyay heestan hal mar sacab iyo moraal igula soo dhaweeyaa waa Caydiruus hal soo dhaweeyay sacab iyo moraal Caydiruus Axmed Jeex oo ah fanaanka daada yar ee qaadaya heestani ayaa waxa uu uga mahad celiyay shirkadaha kala duwan iyo ganacsatadii doorka la meelaawaanka ka geysatay soo saarista heestan aad iyo aad u mahadsantiin ka soo qaybgalayaasha xafladda sharafta leh ee kala iibsiga heesta lixaad anigoo xaqan uga mahad celinaya dadkii ka geystay gacan ha ugu horeeyo Mustafa Cabdi Subcaale Mustafa Sukuwa aad ayaan xaqan uga mahad celinaya hakuxigo Xuseen Sheekh Biixi waxaan la ilaawi karin mar labaad iyo mar saddexaadba Maxamed Xasan Faarax waxa ku xiga Mawlid Xasan Faarax asagana xaqan aad ugu waxa ku xiga Nasriin Marjaan Lulu waxaan mar labaad la ilaawi karin Saacad Aftiile iyo marwadiisa Sucaad ay igu xigaan bahda Riyax Majeex iyagana xaqan ayaan aad ugu mahadcelinay waxa igu xiga Xidig Sukuwa asagana xaqan ugu mahadcelinay waxaan mar labaad la ilaawi karin Faa'id Cabdixakiin miciga ku magacdeeyay aad iyo aad mahadsantiin mahad celin kadib ayaa waxa uu Caydiruus ka sheekeeyay qisada heestan lixaad horta markuu abwaanku ku dhiibayo qisada iska ma sameeyo macno uu sameeyaa marka abwaan daali ayaa heestan aniga ii dhiibay sababtii ugu dhiibina waxa ahayd maadaama aan macnaheeya qofku soo saari karaanay waxay ku dhacday qisadani abwaan daali saaxiibkii ay qsadana ku dhacday waa wiil aad taajir ah wuxuuna jeclaaday gabadh Bariyaana markaasaas ay heestu socotay intaasi kadib ayaa waxa la guda galay daawashada heesta lixaad oo intii lagu sugnaa madasha kala iibsiga heestani cid kastaana ay kala kulantay waxay ka filayeen heestan adiga ku qaba jacay adeecay awristaado adiga ku qaba jacay jacay haddii aanu heesta erayadeeda laba iyo mid aanu ka nidhaano heestu waxay leedahay waa dareemi kartaa qof kasta oo bini'aadmi iyo caqli leh oo garaad leh
qof lixaad lah oo lixaadkiisu un dhammaystirnayn haddii dooqu uu kaa galo ama jacayl aad u qabato su'aalo badan ayaa ka dambeeyo dadku isweydiinayaan marka heestu waxay leedahay ilaah baa amar kale anigu waxaan ahay adoon adaacay abuuristaada oo adiga ku qaba jacayl run ahaantii heesta ereyadeeda ayaad ka garan kartaan micnaha ay xambaarsan tahay ayaan odhan karnaa dankoodana qaar ka mid a fanaaniinta da'yarta ee deegaanka Soomaalida oo ka soo qayb galay xafladan kale iibsiga heesta lixaad ayaa sheegay inay tahay tallaabo aad u wanaagsan oo in lagaga daydo mudan fanaanka da'da yar ee Caydiruus Axmed Jeex oo ku dhiiraday inuu sameeyo wax ka duwan waxay fanaaniintii ka horeysay aysan sameyn isagoo oo noqon doona ayuu yiri shakhsi lagaga dayan doono tallaabada uu qaaday dhammaan aad baan u salaamayaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijka waxaan kaloo marka wada salaamayaa Caydiruus Axmed Jeex fanaan qaaliya waxaan leeyahay Caydiruus dadaalka waxa ka sii wad waxa tahay runtii fanaan lagu dayan karo oo ma taqaanaay ka firfircoon fanaaniinta kale aad baan ugu faraxsanahay ma taqaanaay wadada ugu horseeday fanaaniinta ma taqaana ka horeysay fanaaniinta hadda soo kacaysaba waxaan xaggan aad ugu salaamayaa ma taqaanaay productionka caalamiga ah soo saaraha maame HD oo leeyahay ma taqaanaay aad baad ugu mahadsan tahay qacan qabadka fanaaniinta waaweyn ee fanaaniinta hadda soo kacaysa waxaan xaggan aad ugu salaamayaa taageerayaasha Caydiruus Axmed Jeex waxaan leeyahay dhamaantood baasantiin waxaana halkaasi la guddoonsiiyay wakiilada ganacsatada doorka ku lahaa iibsiga iyo soo saarista heestani iyo dhalinyaro iyagu iskood u gadanayay cajaladaha ay ku jiraan heestan lixaad heesta lixaad ayaa waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay abwaanka daada yar ee Naasir Daaliye iyadoo oo qisada ku duugan heestani ay tahay mid si dhab ah u dhacday ayaa waxa uu abwaanku heestan u dhibay fanaanka daada yar ee Caydiruus Axmed Jeex waxaana la xameeyay laxmistaha weyn ee Cabdifatax Mukhtaar halka muusikada dareen kale uu ku laday Maxamed Yare haweenka alla u fiican udgooniyo qurux badhaafay laxaadkaaga dhilay haddana in adi lagugu sheegine waxaa heeskan muuqaalka cajiibka ka qayb qaatay shirkadaha iyo ganacsatada kala duwan ee Total 571 Havana Cafeteria Begide Spare Part Nasrin Decoration Zukua iyo Maame HD oo ah shirkadda duubista filimada heesaha oo soo saartay heestan lixaad heestan ayaa waxay soo xareysay lacag dhan 150,000 oo bir iyadoo la filayo maalimaha fudud ee nagu soo haya fagaaro noocan oo kala ah Caydiruus inuu ku soo bandhigi doono album cusub naftaadayna ogaado darteedaniga u nool agtayda ka muuqo qaali ishaa kugu dogsatay adeecay abuuristaado adiga ku qaba jacay adeecay abuuristaado adiga ku qaba jacay haddii aanu heesta ereyadeeda laba iyo mid aanu ka nidhaano heestu waxay leedahay waa dareemi kartaa qof kasta oo bini'aadmi iyo caqli leh oo garaad leh qof lixaad lah oo lixaadkiisu un dhammaystirnayn haddii dooqu uu kaa galo ama jacayl aad u qabato
su'aalo badan ayaa ka dambeeyo dadku isweydiinayaan marka heestu waxay leedahay ilaah baa amar kale anigu waxaan ahay adoon adaacay abuuristaada oo adiga ku qaba jacayl run ahaantii heesta ereyadeeda ayaad ka garan kartaan micnaha ay xambaarsan tahay ayaan odhan karnaa dankoodana qaar ka mid ah fanaaniinta daayarta ee deegaanka Soomaalida oo ka soo qayb galay xafladan kale iibsiga heesta lixaad ayaa sheegay inay tahay tallaabo aad u wanaagsan oo in lagaga daydo mudan fanaanka daada yar ee Caydaruus Axmed Jeex oo ku dhiiraday inuu sameeyo wax ka duwan waxay fanaaniintii ka horeysay aysan sameyn isagoo oo noqon doona ayuu yiri shakhsi lagaga dayan doono tallaabada uu qaaday dhammaan aad baan u salaamayaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijka waxaan kaloo marka wada salaamayaa Caydaruus Axmed Jeex فنان قالية وحن ليه عدوس دلك حاجة سيود وحتى رنات الفنان لو دين كرو ومتقناي كيف فرعون فنانين تكله أدبنا كفر حسنا هي متقناي إن وضع الجور سيد الفنانين تمتقنا كهوريسي فنانين هذا سوق حيسبة وحنا حنا هذا السلام يا متقنا برودكشن كا عالمي جاه صارها إن ما MHD أولي هي متقناي أدبدو ما سمت هاي إن قعن قبة الفنانين تا إن وين فنانين هذا سوق حيسة waxaan xagna aad uga salaamayaa taageerayaasha Caydaruus Axmed Jeex waxaan leeyahay dhamaantood baasantiin waxaana halkaas la guddoonsiiyay wakiilada ganacsatada doorka ku lahaa iibsiga iyo soo saarista heestani iyo dhalinyaro iyagu iskood u gadanayay cajaladaha ay ku jiraan heestan lixaad heesta lixaad ayaa waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay abwaanka daada yar ee Naasir Daaliye iyadoo oo qisada ku duugan heestani ay tahay mid si dhab ah u dhacday ayaa waxa uu abwaanku heestan u dhibay fanaanka daada yar ee Caydaruus Axmed Jeex waxaana la xameeyay laxmistaha weyn ee Cabdifatax Mukhtaar halka muusikada dareen kale uu ku laday Maxamed Yare haweenka alla u fiican udgooniyo qurux badhaafay laxaad kaagooni lay haddana in adi lagugu sheegine waxaa heeskan muuqaalka cajiibka ka qayb qaatay shirkadaha iyo ganacsatada kala duwan ee Total 571 Havana Cafeteria Begide Spare Part Nasrin Decoration Zukua iyo MHD oo ah shirkadda duubista filimada heesaha oo soo saartay heestan lixaad heestan ayaa waxay soo xareysay lacag dhan 150,000 oo bir iyadoo la filayo maalimaha fooday nagu soo haya fagaaro noocan oo kala ah Caydaruus inuu ku soo bandhigi doono album cusub naftaadayna ogaado darteedaniga unno agtayda ka muuqo qaali ishaa kugu dogsatay